Xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ku soo bandhigay fanaanada xulka qaranka Soomaaliya taasi oo ah midda ay ku ciyaarayaan ee home iyo awayga. Dharka ay ku ciyaarayaan xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa waxaa farsameeyay shirkadda agabka isboortiska ee A2Z Sports kadib tartan ay la gashay dhowr shirkadood oo sameeya agabka isboortiska. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen xarunta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, mas'uuliyiinta shirkadda A2Z iyo mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku soo bandhigeen fanaanada xulka qaranka Soomaaliya. Ugu horreyn, waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, Yuusuf Muxyidiin, waxaana uu ka warbixiyey heshiiskan ay la galeen shirkadda A2Z Sports House. xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu maanta soo bandhigayaa dharka uu xiran doono qaranka kubadda cagta ee Soomaaliyeed oo u kala bixi doono sida ku aragtaan miiska labada home awayga iyo track suitka iyo dhammaan qalabka uu xiranayo xiriirka Soomaaliya qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo sida ka aragtaan libiska ciyaartooyda da'da yar ee 20 jirada ka yar oo ayagana halkaan maanta nasiib u yeeshay inay soo fariistaan oo ah qaranka hadda diyaar garowga ku jiray dhammaan dhawaan safri doono waddanka Tansaaniya. Gudoomiyaha shirkadda agabka isboortiska ee A2Z Sports, Ciise Ibraahim Xasan, oo dhankiisa warbaahinta la hadlay, ayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa uu kaga mahadceliyey qandaraaskan ay ku siiyeen in ay sameeyaan fanaanada uu ku ciyaari doono xulka qaranka Soomaaliya. qaranka in maaragtay dharkooda sanadkan iyo 2 sano soo socoto aan heshiis ku galnay, heshiis ku guuleysanay in annaga aan maaragtay qalabka qaranka oo dhameystiran nagala helo oo quality-giisa aad u sareeyo sida kambaniyada adduunka ugu waaweyn Adidas iyo Nike iyo Puma iyo kambaniyada la mid ah. insha Allah hadduu Ilaahay idmo kambanigan waxaan jecelnahay inuu Soomaaliya kaliya ku ekaanin in uu East Africa iyo adduunyada inteeda kale u gudbo. waxaan rajaynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay idmo marka 3 sano ee noo dhamaatane kambaniga haddana still ku sii guuleysto oo qaranka jooga in annaga noqono. Gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, Cali Shiino, ayaa sheegay in shirkadda A2Z Sports ay tartan la gashay dhowr shirkadood oo qaarkood caalami ah, isla markaasina ay kaga guuleysatay in ay qaadato sameynta fanaanadaha xulka qarankeena Soomaaliya. waxaa ku guuleystay sida hore loo sheegay, waxaa tartan galay shirkado oo Soomaaliya iyo ajnabi isugu jira. aadaan ugu faraxsanahay inay noqotay shirkad oo dalka laga leeyahay oo dhalinyaro leedahay inay ku guuleysato, inay keento qalabkii oo inay horteena ka muuqda 3 sano ka socota qalabka lagu ciyaarayo da' kasta oo kubadda cagta ah inay keeneen. aad ugu faraxsanahay. waxaa kale hore u keeneen 25 kooxood oo ka dhisan heerka koowaad iyo labaad iyo saddexaadba qalabka ay ku ciyaari lahaayeen ayagana sidoo kale u keeneen. waxaa markii u horeysay kulley horseed iyo MCC oo dibadda aadaya qaadan doona oo hadda bajaa waa lagu wareejiyey, waana socotaa kooxada in loo siiyo. markii arrintan waxaa bilaabay gudoomiyaha fikirkeeda xiriirka kubadda cagta uu isku raacay guddigiisa fulinta. Cabdiqani Siciid Carab, madaxweynaha kubadda cagta Soomaaliyeed, ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay fanaanadan u leedahay xulka qaranka dalkeena Soomaaliya. laakiin bandhigan maanta muxuu ku salaysan yahay? 2 shay ku salaysan yahay. marka koowaad, shirkad Soomaaliyeed oo xiriirku heshiis la galay macnaha awoodna u yeelatay inay qalab sameeyaan in la soo bandhigo. marka labaad, qarankeena kalarisa la arki jiray marka hore oo dhar buluug iyo cadaan waa kalarkeena calanka, laakiin tayaa la soo bandhigay maanta. tayaa la soo bandhigay, tayadaas oo ah tayada oo macnaha ii sheegeen ay ku ciyaarayaan qaramada kale ay ku ciyaaraan oo ka duwan dharka hore la qaadan jiray. labaas mawduuc horta ku saabsan tahay. waxaana important waa aragteen adduunka dharka qaranku dhan micno leeyahay, micno fiican uu leeyahay. coloriskana marka laakiin micno leeyahay waxaa ka mid ah in uu yahay calanka dalka inuu yahay. cid walbana waxay ku ciyaartaa calanka dalkeeda. Bile Mire Maxamed, Hon Cable TV, Muqdisho. maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel
haa internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa ma og tahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'idi karto ma og tahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111